muddooyinkan dambe waxa aad u soo badanay dumarka sida qaldan u isticmaala ama bilaa dhakhtarka qaata daawooyinka ama kaniiniga clomiphene ama clomid oo ay dumarka intooda badan ula baxeen ama ay u bixiyeen kaniiniga mataanaha. sidoo kale waxaa jira dumar badan oo maanta caafimaad qaba oo ku haminaya in ay qaataan kaniinigaas ama daawadaas si ay u helaan mataanaha. haddaba su'aashu waxay tahay maxaa loo qaataa ama loo cunaa kaniinigaas? marunbaa in loo qaato mataanaha. intaba maanta ayaan ka hadli doonaa haddii uu eebba noo ogolaado. waxaan si gaar idinkaga codsanayaa in aad muuqaalka sheer garaysaan oo aad gaarsiisaan asxaabta kugu xiran si ay uga faa'iidaystaan. sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo. mahadsanid. dabada clomiphene ama clomid cillado ama cudurro kala duwan ayay ku daweeyaan dhaqaatiirta. waxaana ka mid ah soo saaridda ugxaanta, gaar ahaan dumarka ugxansidahooda aan si wacan u soo saari karin ugxaanta, sida dumarka qaba PCOS-ka ama polycystic ovarian syndrome. cudurkan Soomaalidu waxay u yaqaanaan ama u gaar og yihiin burobiyoodka. sidoo kale dawadan dhaqaatiirtu waxay u qoraan dumarka ka cabanaya dhalmo la'aanta, maxaa yeelay dawadan waxay saacidaa oo ay active ka dhigtaa hormoonada saacida koriinka iyo soo deynta ugxaanta. sidoo kale dawadan waxaa lagu daweeyaa dhalmo la'aanta ragga, caado wareerka iyo burooyinka ka soo baxa naasaha iyo xaalado kale oo badan. su-aashu kale waxay tahay dawadan yaanan qaadan karin amaba la siin karin gebi ahaan? guud ahaan dawadan lama siin karo hooyada uurka leh, dumarka ka cabanaya cilladaha ku yimaada beerka ama beer xanuunka, dumarka xasaasiyadda ku leh daawada, ama dumarka dhiigbaxa ku imaada gaar ahaan dhiigbaxa xubinta taranka, iyo dumarka qaba burooyinka ku dhaca ugxaanta markii laga reebo PCOS-ka ama polycystic ovarian syndrome-ka, cudurka loo yaqaano burada oo ay Soomaalidu u yaqaanaan burobiyoodka. markii laga reebo inta kale ma qaadan karaan, maxaa yeelay dadka qaba PCOS-ka eega ayaa la siiyaa daawada oo PCOS-ka ayaa inta badan lagula tacaalaa. sidoo kale waxaa isweydiin mudan dawadan bilaa dhakhtar ma la qaadan karaa? jawaabtu waa maya. dawadan ma qaadan kartid bilaa dhakhtar. waxaa laga yaabaa in aad kala kulantid dhibaatooyin caafimaad haddii aad daawadan hore u qaadatay bilaa dhakhtar. fadlan dib dambe ha u qaadani iyadoo aanan dhakhtar kuu qorin. sidoo kale dumarka ku haminaya in ay hadda kadib qaataan, iyagana waxaa wanaagsan in ay ka joogaan ama ay ka joogsadaan. haddii ay jiraan cillado aad u qaadanaysid dawadan oo aad isku aragtay, waxaa wanaagsan in aad la xiriirtid dhaqaatiirta si ay kuu caawiyaan baaritaano dheer kadib. haddii aad u baahan tahay dawadan oo ay gartaan in aad qaadan kartid oo xaaladaada caafimaad aysan khatar gelinayn, dhaqaatiirta ayaa ku sii doona. side effect-ga daawadan waxaa ka mid ah qofka marka uu daawadan qaato waxaa ku imaan kara cillado yaryar oo ay ka mid yihiin madax xanuun, jirka olala, xanuun naasaha, dhiigbax xubinta taranka ah. sidoo kale waxaa ku imaan kara calool xiran. waxaa kaloo ku imaan karo amaba lagu arkaa in ugxaanta ay ku beermaan meelo ka baxsan minka, ama waxaa lagu arkaa multiple pregnancy wax loo yaqaan. fadlan ha iloobin in aad muuqaalka sheer garayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay uga hortagaan arrinkan. sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo. mahadsanid. intaasaan kusoo gabagabeynahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.